kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga dib u heshiisiinta qaranka ay xubnaha guddiga uga hadleen colaadda ka jirta gobolada qaar ee u dhaxaysa beelaha walaalaha ah gaar ahaan colaadda wali ka taagan deegaanka ka xandhaale ee gobolka Galgaduud sidoo kale beelo ku dagaalamay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaano kale xogayaha guddiga dib u heshiisiinta Sayid Cali Cabdi oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xilligan ay dadku gartaan in dagaal iyo dhiig oo la daadiyo uusan xal keeni karin sidaas daraadeedna la ilaaliyo dirisnimada iyo wada noolaanshaha waxa uu tilmaamay in laga soo gudbay xilligii dagaalka iyo colaadda wax lagu raadinayay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ayaa isna tilmaamay in haddii ay dagaalo beeleedyadu sii socdaan ay keeni karto xaalad culus oo marka dambe ay adkaan doonto in la xaliyo sidaas daraadeed beelaha dagaalamaya ayaa waxa uu u baaqay in ay si shuruud la'aan ah dagaalka joojiyaan oo ay gartaan khasaarihii hadda dhacay mid kale oo ka badanna in uu dhici karo waxaan magaca guddiga dib u heshiisiinta qaranka ku soo jeedinayaa inagoo aad uga tiiraanyaysan dhacdadaas xanuunka badan iyo dadkaas ahalka oo riximka hoose ah dhibaatada kala gaartay xilliga lagu soo beegay oo aan islahayn dadka Soomaaliyeed uu ka daalay dagaalo sokeeye hadduu wax tarayeen muddo 28 sano iyo ka badanba 30 sano iyo 40 ku dhawaadba dagaalo sokeeye in muddo waa jireen ma bilaaban oo kaliya dhowr iyo 20 sano waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inuusan ku cibro qaadanayn wixii dhacay iyo wixii laga dhaxlay iyo wixii lagu waayay dagaaladaas muddadii ay jireen guddigu wuxuu ka tiiraayinsan yahay dagaaladaas mid kale oo isaguna ka socda maalmo dhaweeto ka soconayay istisaarka xuduudaha gobolada Hiiraan iyo Galgaduud khaasatan agagaarka degmada Maxaas oo isagana dad badan oo ku hoobtay dib badan in ka dhacay sidoo kale meel ku dhow deegaanka Cadale iyadoo maalmo dhaweeto dagaalo sokeeyo dad ku dhintay ka dhacay sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe hoose ayadana colaado ayaa ka jira gobolkaas in muddo dagaaladaas waa ka jireen laakiin waxoogaa inuu qaboobaad moodayso muddooyinkan dambe haddana waxba ka jira maalmo ka hor ayay ahayd markii uu dagaalku dib uga qarxay deegaanka ka xandhaale ee ku yaala gobolka Galgaduud dagaalka ayaa u dhaxeeya maleeshiya beeleed isku haya dhul daaqsimeed dagaalkaasi ka dhacay ka xandhaale waxa ku dhintay dad ku dhow 20 qof halka ugu yaraan 40 qofna ay ku dhaawacmeen dadka dhaawaca ah waxa loo qaaday cisbitaalada aagaasi sidoo kalena maalmo ka hor dagaal beeleed ayaa ka dhacay deegaanka Bukorarka dhiiqaaley oo u dhaxeeya deegaanada Gololey iyo Cadayga oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe guddiga dib u heshiisiinta ayaa ugu dambeyn sheegay in deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ay u diri doonaan xubno guddiga ka tirsan si loo kala dhex galo oo dagaalada u dhaxeeya dadka walaalaha ah loo dhameeyo guddigu wuxuu ka codsanayaa waxgaradka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool cuqaasha culamaa diinka iyo waxgaradka Soomaaliyeed deegaanadaas dhibaatadu ka oogan tahay ku nool waxaan si kalsooni leh oo Soomaalinimo leh oo islaamnimo uga codsanayna inay yaani walaalahaas iyaga u dhaw inay waxgaradka Soomaaliyeed dariska la ama kuwa la jooga anoo huba inay ku mashquulsan yihiin ilaa haddana aan ka warqabno inay runtii hawl badan ka hayaan in degdeg loo joojiyo ay intaas oo sii socdana kulay guddigu wuxuu noqon doontaa inuu laftiisu u diro erga nabadeed oo fariinta guddiga gaarsiiya